الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد أحبتي في الله، waxaan idin dardaarmayaa ilaahay cabsidiisa, waxaan idin ka digayaa ilaahay macsiyadiisa iyo amarkiisa oo la khilaafo. walaalayaal, waxaynu ku jirnaa waqti aad u adag iyo zaman aad u dhib badan oo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa iyo xikmadiisa uu inagu soo hagaajiyey inaan adduunka waqtigan nimaadno. waa waqti adag, ruuxa muuminka ku adag, ruuxa muslimka ku adag, ruuxa muwaxidka ku adag. waa waqti wax kasta oo ilaahay diintiisa khilaafsan uu xoogaystay, wax kastoo wanaag iyo khayr ahaana uu daciifay. waa waqti in badan oo mabaadi'dii diinteenna ka mida ay noqotay qariib, sharkii iyo xumaantiina ay noqotay macruuf. waa waqti kufriga iyo dowladihiisii iyo dadkiisii ay xoog leeyihiin, dadkii ahlu tawxiidka ahaa iyo mu'miniintiina ay daciif yihiin. waa waqti ay fududaatay in xumaanta iyo sharka iyo gaalnimada iyo macsiyada la faafiyo oo adduunka lagu baahiyo, ayna yaraatay munkaraadka iyo xumaanta in la inkiro oo laga hortago. waa zaman ay badatay in la caabudo adduunyada iyo kuraasteeda iyo shahawaadkeeda, qiyamkii akhlaaqda iyo wixii qiimo lahaana uu yaraaday ama laga zaahidoo laga tegay. waa zaman akhlaaqdii baaba'day oo akhlaaq xumadii ay faaftay. waa zaman wixii khayr ahaa iyo daaco ilaahay ahaa ee ilaahay jeclaa uu noqday wax lala dagaalamo. xumaantii iyo fuxshigii iyo zinadii iyo liwaadkii iyo wax kastoo xunna uu noqday wax la taageeroo la garab istaago. waa zaman dadka intooda badan ay noqdeen wax adduunyo caabud ah, oo dirhamka iyo doolaarka iyo dahabka iyo adduunyada dhaldhalaalkeeda la caabudo. wixii qiyam iyo wanaag ahaa iyo diin ahaa iyo akhlaaq ahaa iyo caqiide ahaana uu noqday wax rakhiisoon qiimo weyn ku fadhiyin. waa zaman muslimiinta intii dareen diineed uu ku jiray xuquuqdoodii la siibay oo la dhacay, intii gaal iyo gaala raac ahaana loo gacangeliyey. waa zaman xaaladdu adag tahay, waa zaman fitanku faafeen. waa zamankii asminadii nabigeennu ka sheekeeyey sal alla alayh wasalam ee uu yidhi yusbixu arajulu fiiha mu'minan wayumsi kaafiran. zaman ruuxu subaxdii uu islaamnimo ku waabariisanayo iyo iimaan, galabtiina uu gaaloobayo. galabnimadii waa mu'min, waagu wuxuu u baryaa isagoo gaal ah. yabiicu diinahu bicaradin min addunya, diintiisii wuxuu siisanayaa oo dhaafsanayaa oo ku gadanayaa waxoogaa yaroo adduunye ah, dheef yaroo adduunye ah. zamankaasaynu joognaa. ruuxii dareen iimaan ku jiro, waaqaca iyo wadciga aan ku noolahayna garanayo, fahansan wixii laynaga rabayee ilaahay diintiisa ku sheegayna fahansan. waa zaman uu aad iyo aad u murgayo, oo aad u xanuunsanayo, oo aad iyo aad uu qandhanayo, oo wax maskaxdiisa ka weyni haysto waay. waa zaman aan dhihi karno wuxuu ka mid yahay asmiinadii nebigeennu tilmaamay sala allahu calayhi waaalih wasalam kama fii saxiixi muslim. qiyaamadu dhici maysa buu nebi maxamed ku dhaartay sal alla alayh wasalam ilaa uu ruuxu soo maro ruux dhintay qabrigii, markaasuu ku gelgelimaysanayaa, wuu ismarmarinayaa, waa ku rafanayaa,
markaasuu wuxuu leeyahay shallaytee qabrigan ruuxa ku jira maxaan u noqon waayey, maxaan hadda ka hor isaga dhiman waayey. nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam, dhimashada uu tamaninayo ma aha diin darteed ma aha, laysa bihi diin, fii riwaayati dayn. culaysku dhanka diinta ma aha, culaysku ma aha ilaahay kulankiisa ma aha, laakiin culaysku wuxuu ka haystaa fitan iyo imtixaanaad iyo adduunka waxaa ku haysta wuxuu xamili la'yahay. markaasuu wuxuu leeyahay maxaan hadda ka hor isaga dhiman waayey. su-aashu waxay tahay, horta ma dareensannahay xaalka jira, wadciga ma fahansannahay? haddaynu fahansannahayna su'aal baa imaanaysa, jidkii lagaga bixi lahaa waa xaggee? see loo badbaadaa? see loo nabadgalaa? fitankan sidee looga adoo bad qaba ama u dhimataa ama uga baxdaa? jawaabtu si koobani waxa weeye, dariiq kaloo looga baxa ma laha, falsafad kaloo kaa saari kartana ma jirto, dadaal kaloo fitanka lagaga badbaadana ma jirto, ilaa in la raaco wixii ilaahay soo dejiyey, nebi maxamedna laga dhaxlay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. ninkii meel kala moodaayey lafcad buu toobin ku hayaa, maalin uusan talag gacan ugu jirin buuna farta dhexda ka qaniini doonaa. awalan marka ugu horraysa mar walba la tacaal iimaankaaga inaad cusboonaysiiso. maxaa yeele nebigeennu sal alla alay wasalam wuxuu tilmaamay fitanka culusi markay dhacaan isku day inay geeridu kuu timaado adigoo ilaah iyo maalinta aakhara rumaysan, iimaanka ku mitid, mabaadi'da caqiidada saxda ku mitid, ayada ku dheg, ha kuu timaado tii alle adigoo mabda'a ku dheggan. weliba sida nebigu inoo sheegay, iimaanku waa duugoobaye kolba cusboonaysii kana warhay iimaankaaga, li'anna musiibada ruuxa muslimkaa waxay ka asiibtaa marka ugu horray kaga dhacdaa hoosu dhac iimaankiisa ku yimaada. halkaasaa laga galaa, kadibna way la durugtaa, macaasidiiyo dunuubtay la aadaa, ilaa marka ugu dambaysa gaalnimo iyo kufri ay la aado. xaggee ka bilaabatay? iimaankaagaa hoosu dhacay, waad dareemi weyday, waad kabi weyday, waad cusboonaysiin weyday, markaasay kula durugtay. qodobka labaad, badbaado waa inaad wax barato, ood kitaabka ilaahay barato, oo sunnada nebiga aad barato, oo ilaahay wuxuu kaa rabay fahanto, oo waxa ilaahay uu kaaga digay aad fahanto, oo waaqican oo kale markaad marayso see loo dhaqmaa aad fahanto. cilmiga sharciga ah badbaado waaye, leanna dariiqii buu kuu ifinayaa, boholaha iyo booraannada iyo meelaha laga dhacay halistaa buu kuu tilmaami, meeshaad lugta dhigi lahayd buu kuu sheegaya, meeshaad ka tillaabsan lahayd. haddaadan cilmigii iyo aqoontii diineed lahayn, adoo wax hagaaji isle baad haddana hallaynaysaa, adoo moodaya inaad qumman tahay baad gebi ka dhacsan tahay, li'anna aqoon ma lihid. haddaad badbaado rabto wax baro, wakhtigaaga bixi, qur-aanka baro, macnihiisa baro, axaadiista nebiga baro, macnaheeda baro, xaaladahan oo kaleeto jidkee la maraa baro. qodobka saddexaadi wuxuu yahay, ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo soo dejiyey kitaabka qur-aanka ah, nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu ku sharxay axaadiistiisa. labadaa intaad haysataanna lumi maysaan buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. misdaaqeeduna qur-aanka kariimkaa buu ku jiraa, oo allah tabaaraka wa tacaala waa ka yidhi, faima ya'tiyannakum minii hudaa, hanuun hadduu xaggayga idinka yimaado. waa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla alayh wasalam. faima ya'tiyannakum minii hudaa faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqaa. intaad ku dheggan tahay kitaabka iyo sunnada lumina maysid, khasaarina maysid. noloshaada kudha kitaabka alle iyo sunnada nebiga sal alla alay wasalam. cibaadaadka iyo waajibaadka diintaada toosiyoo hagaaji,
حيل النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حلق فتن كجيران روح مؤمن كعريري قالوا والدين تيسو هالس كشو وهرجق إسليتي فتن كتاقيهين روح عبادة إلهي أوجه السداي وحو لمدي هيس روح أنيق إيسو هجرودي أوكالي كهجرة إلي ومقام آدو سريوه وحاكا لي طول ملمدة دنهاقا قرو ومصلحة هذا قرو ومصلحة هذا كمشغول ودنت هذا آخرية أدون كمشغول ويان لغو فضوضي سنينو دادكاسي أفكارها خلدان وتأمدن يستياشها يينكو استعمال وكو أديك سنين ولا يستخفنك الذين لا يوقنون آخر ما يقانان وإله إلا كلن كيسا مر ما يسنا ووحبدن با كدهسون ييسن كو فضوضي سنين وسفضوض كو طوفسن كو نوحا سوكلا من برنامج وتو أجندة وتا وان آخر أسعنينو الدنيا دي سربا إنو النولادو كرسي دونيا أما تشغد دونيا أما مقعد دونيا أما حول دونيا انتو قلفك كوكو قاضا إنو كوكو شقيستو بري محوكو تاري واي نين أفكار خلدان حمارسانو إساق لفتي سبا النوصاني إنو كوكو حيستو أفكار تيسية فلسفة ديسي كو قادسيو بري محوكو قبان كرا وإن أظن فرط النحذة كقليدو تراهدو ليتني محا إيقاي محا رسولك الراعي واي محا السنة إيقال ليحي محا بلايادا إيقاي محا يقبلي واي محبكو قول ميس سيدة درادت أي النبي قال له تلمامي صلى الله عليه وآله وسلم مركي فتن قرعان دنها خاص كم مشغول دنها عام كأنا إساقتك دنها عام كأنا إساقتك ريه هبل باوحلور رادي هي قبل هبل باوحلور رادي هي طلع أيه هي وحبا مقان دنت هذا قرو دنت هذا قرو دنت هذا متقالد لحدا شربات هاي وقبر با قرك أسارن تهاي قبيالة يريه بالنوادو أولين يسا برينا إلهي با لكل مدون تاد هور استاجي دون تا محاد وعسن تاي حاجة بسعتها كان درنه حد إيه هبين بواحد دقي سنة إلهي بايري أو رسول كي سايري أو وحني وحيهي وكما الديرين يسو كما الدنق يسو كما القل يسو ميش هذه بتاقنتها حمانتي بعض الأولى هذه كجرتها ورمي هذا قيمانين ورمي هذا آخر هذين ورمي هذا قبر القليدين وردو كليه يسو إله مور إيمان يسد وروح نصول لك قدب إيمان ماي ورسو حسابي مجرته ورعقيبك سعوتها ورمحيكو قبل ريهب المحوكو قبل ونين هبل محوكو قبل أو قبل هبل محوكو قبل أو كو هبل محيكو قبل أو حزبي هبل محوكو طري محوكو بيري محدك وركو طري محدك هيا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وحاسيسا كفضوضي سنين وحاسيسا كقدري سنين ويسا دنت هذا كسيجين دنت هذا ينا كسيجين هذا دنت هذا كرنيس وحكم إذا أسباب بدبادة حالتها مركز لوجيرو فتنك بدبادة وحكم إذا جهد كاجا هي دلال كاجا هي مسكح هذا هي قليل كاجا هي حولها كاجا هي أود إلهي كسي واحد جلساء إلهي دين تيسينا ضو الشقيس إلهي وكوه لنا يا مركز أهيلس إن تنصروا الله ينصركم هذا إلهي أهيلسا وإذن هي لنا احفظ الله يحفظك هذا إلهي حفظ ذا يسوي رواكو حفظنا يا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وناك هذا صبيس أبالك هو وناك سيداس درادد هذا ميل ودقال لميس هذا جهد يددا القلينيس هذا ميل أمور ميس هذا ميل حولها كوب حينيس هذا جهد قلينيس هذا عقل قلينيس هذا حولها قلينيس ماشات قلين لهيد وإلهي دينتي سأوهي لي إهل كذا أوهي لي هذا قرب يستاق ميدا سوح كتري إلهينا هو حفظنا يا تبارك وتعالى مد دينت إلهي ود قال لما النقاء أما مد قرب يستاقو السقا قربوها مد دينت إلهي برا يوم معلن النقاء
أما مد أهيليو قرب استاغن نقو مد إلهي تبارك وتعالى دعوة سي الدين تي سفافية النقو مد قرب استاغ النقو من مصلحة إيواناق أمد كشقية النقو أما مد قرب استاغ النقو هل كاوية ميشة الضنت هذه مصلحة هذا كجرت بدادنا كجرت لكن هذا تكلا حتى جهدي كاغا يددال كاغا ملحن أي قشو خاتمة حنبات كسوحو تاسيحن وضو دماني وحكم إذا أسباب تبداددا إن آد بدي صوت دعاء إلهي إنه طريقة صحدة وقصه فتن كان كابد باديو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحكم إذا هدردار مديسي ومديسة وشيدي استعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلهي كم قال فتنوينك هو مقضي وهو قرصون الله كعرب الله كما قال إلهي كما قال إلهي كعرب خاصة مركي في الدويك وعلوسيهين وضدك انتو دي بدنا أي قاتين إني فتنة داسكو قادة تقركادو سارنتاهي لأن ماشا بني آدم كاللقاقلو وقلبك قلبك وفدود يهي إنو اللي إحدنا وفدود هاي إنو خرمنا وفدود هاي نبينا سيدو شيخ صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم كوحي كتشران لوفرات وإلهي فريه سكمدا إحضو ذي كتشران سيدو دارو إلهي أرك رقا مناسبة حديث كوكويبين وحي أهد نبي الدعاء دي ساوحا أبضني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي قلوب ترك رقو قلبي جيك الدين تاذا كسو وكسا عائشة وحي الرسول إلهي دعاءنا أبض بدي الساعة محاكا بقيسا دعاءنا كوكوبضا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مركزا وحي عائشة إلهي أدوم مدى قلوب توض وحي كتشران إلهي فريهيسا سيدو دونون أرك رقا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم محاد أديك اسم ملاينيسا أو ما أنت نول أو وقت كان شوغا أو فتنوين كان لنول قلبي قاقا حال كيسو سيدوي هل اسبان كتشرنا سأستردد إلهي بري إنو فتنك كابت باديو الله بري تبارك وتعالى إنو كسوغو قلبك خيرك وناك تشعليسيو كسوغو استغفقوا وقضبك تضباد أما السيديداد مواطن فتنك مالها الدباتات كرعيسي فتنك كتشيران كعرب نبيك عرر صلى الله عليه وسلم فتنك كعرر انت تكدر كتكدر شرر كذا هتجد هاساوي هذا كقيب قلن فدي كدر كذا كقيب قلن قعن يتلاها كيالن وحبها قدر سنن هدي كمار مويد النصيحة إلهي كبقى ساقاتيا مصلحة سسوتشيد لكن قيبها كان قنن هنا أدوانن هنا كقيب قلن في التنكاسي ميلها أي كالسعودان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نينكي هلي كرميلو كبت بادو همغان قالوا هو عرب النبي يقول صلوات ربي وسلامه عليه الى كتليه بمغالوين كمركي فتنكو كدعان هداد بيرتاده كوبد بادي كرت بيرتاده اد هداد اديغاغا كوبد بادي كرت باديه اد اديغا تبعو هداد جيل لهداي جيلاغا اد هداد قويسكاد كدلتay dhexdooda كوبد بادي كرتو فدنadu ka badbaadin kartana iyaga ku carab si ay diintaada ugu fadbaado laana iyada raasamaal ah xoolo seeg oo kursi seeg oo hanti seeg oo beertaada seeg oo ilmaha seeg oo xaaska seeg laakiin diintaada ha seegin wax walba la waayo waa laga kaban karaa laakiin diintaada waydo kabasho male meel laga soo kaban karo ma saastaradeed baa nabigeena ducadiisa waxa kamid ahay اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا إله مصيبة نذا الدين تدحل هيال دين تهنجلين مصيبة إيه فتنة إن علمها كاجشو أو حاسك كاجشو أو حولها كاجشو عافماتك كاجشو كبش إلى
laakiin markay musiibadu diintaada iyo caqiidadaada iyo cibaadadaada iyo xidhiidhkaad rabbigaa la leedahay halkaa markay fitnadu kaa gasho kabasho ma leh waad halaagsantay halaag xaqiiqi sidaas daraaddeed wadciga aynu ku noolay wadci sahlan maaha inaynu dareenno fahanno wadciga iyo xaalku inuusan sahlanayn mar walbana aan ku dadaalna asbaabta badbaadada oo ilaahay qur-aanka inoogu sheegay nebigi moxamedna sala allahu calayhi waaalihi wasalam aad u faahfaahiyey bal ilaahay waxyigu u keenay nebi moxamed sal alla alayh wasalam ilaa qiyaami saaca waxaa dhici doona waa inoo sheegay nebigu sal alla alayh wasalam xaaladahan hadda aan marayno wuu ka sii warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu inoo sheegay inay sidan wax u dhici doonaanna wuxuu inoogu daray jidkii badbaadada iyo saynu u badbaadi lahayn nebi moxamed waa inoo raaciyey iyo daawadii cudurkiina waa inoo sheegay daawadiina waa inoo sheegay laakiin yaa garanaya ciddii baratay ciddii ku dadaashay ciddii raadisay aynu marka ku dadaalno asbaabta badbaadada fitankana aynu ka fogaanno cararno diinteennana aan la fakanno